daawade haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkayga fadlan subscribe iyo like ha ilaawin gambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada cashar Ingiliish ah oo qaybta naxwaha ah oo ka hadlayo qeybaha aas-aaska naxwaha ah oo lagu magacaabo auxiliary verbs ama ficil caawiyaasha. Auxiliary verb waxaa la dhahaa ficil caawiye. Ficil caawiye marka la dhahayo qeexitaankiisa waxaa la dhahay what is an auxiliary verb? Waa maxay ficil caawiye? An auxiliary verb ficil caawiyaha. What is an auxiliary verb? What is an auxiliary verb? Waa maxay ficil caawiye? An auxiliary verb ficil caawiyaha or ama helping verb is also called lagu magacaabo is used waxaa la isticmaalaa with a main verb ficilada waaweynka ah to help si loogu caawiyo express markay muujinayaan the main verb is tennisyada ficilada waaweyn loo isticmaalo mood ama xaaladaha or ama voice ama qeybaha past voice markii la gaaro. The main auxiliary verbs ficil caawiyaasha ugu waaweyn waxay kala yihiin verb to be ficilka ahaanshaha, verb to have ficilka haysashada, and verb to do iyo ficilka sameynta. Ficiladan saddexdan ficil caawiyaasha loo kala qaybiyo they appear waxay u muuqanayaan in the following forms habkan soo socdo. To be waxaa loo kala qaybiyaa am, is, are oo ah presentiga be-ga verb to be-ga, was iyo were oo iyadana pastiga ah, been iyo will be oo iyagana loo isticmaalo dhinacyada perfectyaasha iyo future-rada. To have oo asigana ah qaybta labaad ee ficilada auxiliary-ga ama caawiyaasha waxaa loo kala qaybiyaa has, have iyo had iyo having oo ficilka haysashada markaas oo will have oo asigana ah qaybta future-ka. To do oo iyadana loo kala qaybiyo ficilka sameynta oo loo kala qaado do, does, did iyo will do. Saddexdaas iyagana loo kala qaybiyaa. Markaan qaybta imaano qaybtan waxaa waaye auxiliarieska iyo qaababkooda. Qaybta adeertana sharaxaad dheer laga sii bixinaa auxiliary verbs waxaa la dhahaa verb to be, verb to have iyo verb to do. Verb to be waa inta loo qaybiyo is, am, are, was, were, be, been iyo will be. Intaas waxay noqonaysaa ficilka verb to be-ga ah. Have ficilka haysashada asigana has, have, having iyo will have. Do verb to do oo ficilka sameynta asigana waxaa loo kala qaybiyaa does, did iyo will do. Ficiladan dhammaantood waxaa loo isticmaalaa marka to help in lagu caawiyo to express in lagu muujiyo tennisyada mood xaaladaha or voice ama dhinaca passive voice-ka. Tusaale tennis ahaan marka loo isticmaalayo tusaale waxaa ah he had eaten asiga wuxuu cunay the whole pie dhammaan burkii. Waa bur lagu daro qudaar iyo la xagiliyo. Tenniskan waxaa la past perfect tennis lagu magacaabo tenniskan. He was snoring asiga wuu quurinayay all night habeenkii oo dhan. Tenniskan waxaa la past continuous tense. Mood markii laga sheekeynayo xaaladan waxaa waaye xaalad su'aal weydiin ah interrogative mood Allah. Su-aashan waxay noqonaysaa did it go well? Si fiican miyay u tagtay? Did it go well? Si fiican miyay u tagtay? Do try our tarts. Ma isku daynaa inaan sameyno toortooyinka. Markii passive voice loo isticmaalayo waxaa loo dhisaa qaabka noocan ah voice-ka qaybta oo hadalka marka loo imaado passive-ka ah. The pie and burkii was eaten by waxaa cunay the dog eegii waa passive voice hadalkan. There is waxaa jiro another kind nooc kaleeto of auxiliary verb oo loo ficil caawiye kaas oo lagu magacaabo modal auxiliary verbs ficil caawiyaasha tilmaamo awoodda iyo waajibaadka or modal verb. The modal auxiliary verbs ficil caawiyaasha tilmaamaya awoodda iyo waajibaadka waxay kala yihiin can, could, may, might, must iyo ought. Shall, should, will and would dhammaan ereyada ficiladan waxaa la dhahaa ficilada tilmaamaya awoodda iyo waajibaadka. The modal auxiliary verbs waxay yihiin can, could, may, might, must, ought, shall, should, will and would. Dhammaantaas ereyada ficiladaas waxaa la dhahaa ficilada tilmaamayo waajibaadka iyo awoodda. The modal auxiliary verbs ficilada tilmaamaya awoodda iyo waajibaadka never change ma bedelaan iyaga
their forms qaabkooda ayaga lama bedelo marka la isticmaalayo. Tusaalooyin ku saabsan ficil caawiyaasha tilmaamayo tennisyada kuwa muujiyo tennisyada. Here halkan waxaa yaalo some examples tusaalooyin of auxiliary verbs ficil caawiyaasha expression kuwaasi oo muujinayo tennisyada. In these examples tusaalooyinkan the main verbs ficilada waaweyn are in bold oo kuwa farta waaweyn ku qoran, and the auxiliary verbs ficil caawiyaashana are highlighted oo kuwa ayagana calaamadda ay saaran tahay calaamadda harka ah. She was waiting ayadu waxay sugaysay for an hour saacad. She is waiting ayadu waxay ku sugaysaa in the hall hoolka dhexdiisa. She will be waiting outside ayadu waxay kugu sugi doontaa banaanka. Waa future. Tennis koowaad waxaa la past continuous. Tenniska labaad waa present continuous. Tenniska saddexaad waa future continuous. In each of these examples tusaalooyinkan soo dhaafna mid walba oo ka mid ah auxiliary verbs ficil caawiyaasha to be helps waxay caawiyaan to form in lagu sameeyo the progressive tennis continuous oo socdo, which kaasoo is the tenniska used loo isticmaalay for ongoing actions ficilada socdaan. In each mid walba of these examples ka mid tusaalooyinkan the auxiliary verbs ficil caawiyaasha tusaalahaan verb to be ficilka caawiyaha oo ahaanshaha helps wuxuu caawi doonaa to form in lagu sameeyo the perfect tennisyada perfectyaasha which kaasoo is the tenniska used loo isticmaalayo for expressing in lagu muujiyo an action ficilo completion kaasoo dhammaaday. Tusaale, she had been studying iyadu waxay baranaysay before the incident iyadu waxay baranaysay intaysan dhicin ka hor dhacdada incident waxaa la dhacdo. She has been studying iyadu waxay baranaysay. She will have been studying iyadu waxay baran doontaa for a month bil at that point xilligaas. Tusaale koowaad waxaa la past perfect continuous. Tusaale labaad waxaa waaye present perfect continuous tense. Tusaalaha saddexaadna waxaa waaye future perfect continuous tense. In each mid walba ka mid ah of these examples tusaalooyinkani the auxiliary verbs ficil caawiyaasha have and had help waxay caawinayaan to form si loogu sameeyo the perfect progressive tennisyada perfectyaasha oo kuwa ah progressive-ka ah kuwa continuous-ka ah which kuwaasoo is the tennisyada used loo isticmaalayo for expressing in lagu muujiyo an ongoing action completions ficilo socdo oo haddana dhammaaday. Ku mahadsantihiin daawashadiina.